like saar muuqaalka si saaxiibo badan u gaaro. Haddii aad nagu cusub tahay iloobina subscribe saarto. Maanta waxaan ka hadlaynaa sida bishimaha loo qurxiyo, loo weyneeyo si dabiici ah adigoo aan wax qalina marin. Marka waxaan u baahannahay inaan ogaano waxyaabaha aan isticmaali doono iyo sida aan u isticmaali doono. Waxaan isticmaali doonaa marka hore petroleum gel. Haddii rabto Vaseline gel oo ku bedeli kartaa. Sidoo kale waxaan isticmaalaynaa qarfaha. Qarfuhu waa inuu noqdo qarfo budo ah. qarfaha marka budo uu noqdo waxaan isticmaali doonaa saliid la yiraahdo sarataga marka la yiraahdo saliid kale ha u malaynin waa saliid qombe magacan ayaa marka ku qoran laakiin waa iska saliid qombe caadi ah soo qaada marka koob yar ayaad soo qaadanaysaa kadibna waxaad u baahan tahay inaad hesho qaadada laftigeeda waa inaysan noqon qaado aad u weyn qaadadu waa inay qaado yar noqotaa kadib waxaad soo qaadanaysaa koobka yar iyo caaga yar ee buluuga ah labadan marka waxay kaa saacidayaan inaad u kala qaybsato waxyaabaha aad hadhow ku shuba doonto kadib waxaad soo qaadanaysaa saliid qombihii waxaan ku shubanaynaa weelka adiga qiyaas ahaan 2 qaado 3 qaado ayaa ku shuba karnaa kadibna qarfaha ayaan haaf yar oo qarfaha ayaan soo qaadanaynaa waxaan isku qasaynaa marka qaadadii iyo qarfihii ayaan isku qasaynaa iyo saliidii kadib suufka dhagaha ayaan soo qaadanaynaa suufka dhagaha marka waxaad ku marinaysaa bishimaha ayaad ku marinaysaa waxaad iska ilaalinaysaa marka gacantaada inaad ku mariso sababtoo ah gacmaha inta badan jeermis ayaa ka dhasha oo halistooda ay leeyihiin marka intaas aad samayso kadib haddana waxaad samaynaysaa qarfihii ayaad qayb yar ka soo qaadanaysaa markaad qarfihii qayb yar ka soo qaado saliidii yartahayd ee koobka ku jirtay wixii ku haray ayaad ku daraysaa qarfihii kadibna waxaad bilaabaysaa inaad dib u marsato isla qarfihii budada ahaa inaad dib haddana ugu qurxiso bishimihii marka mar walba waad isticmaalaysaa suufkan 2 mar aad isticmaalaysaa sida sawirka kaaga muuqata marka intaas ay kugu dhamaatay kadib waxaad samaynaysaa waa inaad tiish soo qaadato ma dhaqaysid oo biyo iyo ma isticmaali doonto tiishaad soo qaadanaysaa tiishka ayaad ku nadiifinaysaa marka bishimihii adiga waxaa loo baahan marka ugu yaraan 30 daqiiqo inaad sidaas ahaato marka intaa kadib ku dhamaadaan waxaa bishimahaagu ay ku soo baxayaan qaabkan quruxda badan bishimo qurux badan waaweyn wax qaliinana uma baahnid bishimahaaga marka ay noocan noqdaan kadib hawshu ma dhammaan weli waxaad samayn doontaa inaad soo qaadato rooseetadu waa muhiim laakiin waa marka aad tiishka ku nadiifiso kadib rooseetadii ayaad haddana waxaad ku marinaysaa isla suufkii dhagaha ayaad ku marinaysaa marka intaas aad samayso kadib bishimahaagu waxay ku soo baxayaan bishimo soo jiidasho leh aad u qurux badan sidoo kalena bishimo aan wax qalina marin ayay ku noqonayaan like saar muuqaalka haddii aad ka heshay haddii aad nagu cusubtaan iloobin inaad subscribe saarto